dunida waxaa jira dad badan oo ku nool munaasabadda xajka waxayna dadku ku tartamaan soo dhoweynta xujayda iyagoo dhar cad xiran barakadana ugu duceeyay intaysan gaarin waana cirooliya carruur ay sugaan inay ka cabbaan biyaha ceelka ugu qaalisan dunida waxayna awooyaasheen inoo sheegeen in biyaha zamsamku biyiyaan gaajada oonka daawana ka yihiin cudur walba waxaana zamsamka ku xeeran taariikh dheer maxayse tahay taariikhda mucjisada ee biyaha zamsamku. waa qiso cajiiba oo saameynteedu taxnaydinta u dhaxaysa dhulka iyo samaawaadka waxayna ka dhacday saxare engegan ee dooxo aan geed lahayn xaggaasoo hajaa iyadoo gacmaheeda adeegsanaysa isku dayday inay joojiso biyaha burqamaya iyadoo ku ooday camuud hooyada nebi ismaaciil calayhi salaam. waa xaggan waxaa malakal jibriil uu ku dhuftay dhulka baadkiisa oo uu ka soo burqamay ceelka mucjisada ee biyaha zamsamka oo ah ka ugu wanaagsan dunidan aynu ku noolnahay waxaana mucjisada zamsamku burqamaya ilaa iyo intaa dunidani ay taagan tahay oo ay dadku ka hirqanayaan biyo la barakeeyey oo cabbitaankoodu xitaa uu cibaadada ka mid noqday waxayna xaqiiqadu tahay inay biyahani xijaab ka yihiin cudurro badan waxayna mayraan xiqdiga xasadka isha iyo weliba cudurrada nafsaaniga iyo cudurro fara badan oo qofka bini-aadanka saameeya maalin walba xitaa nebiguna wuu u duceeyey biyahan waana hadiyad ka timid xagga ilaaha raxmaanka. biyaha zamsamka ma guraan mana dhammaanayaan weligood waxaana qof marka mar walba cabba la sheegay inay dayso gaajada haraadka iyo weliba diihaalka cudurrada. biyahan ayaa mucjiso muuqata oo dunida taallaa maanta 21 mitir ayaana u dhaxaysa ceelka zamsamka iyo kabcada wuxuuna la siman yahay xajarul aswadka waxaana labadiisa ilbiyood ay ka yimaadaan labada dhinac ili waxay ka timaadaa kabcada hoosteeda isha labaadna xagga buurta abuqubays iyo safa. ceelkani waa ceel nadiifa mana ku dhashaan ilaah amarkiis xasharaad cayayaan iyo bakteriya midna toonna waana la ilaaliyey sida la sheegay. ceelkan ayaa si aan kala joogsi lahayn biyaha u keena wuxuuna u hoggaansan yahay amarka macbuudkiisa wuxuuna biyaha u tuuraa 11 litir ilbiriqsigii marka uu u yaryahay markay ugu badan tahayna 18 litir ilbiriqsigii waxaana mucjisada ceelbiyoodkani uu ku yaalaa masaafo ka yar 30 mitir dhulka kabcada hoosteeda ee barakaysan. qulqulka biyahan ayaa ka soo bilaama markaa laga soo nuugo ceelka labada matoor ee waaweyn ee isku bedela hawsha 24 saac. biyaha ayaa dhuumo loogu talagalay u qaadaan xarunta qaybinta ee degmada gudayn ee boqor cabdilnabiil bin cabdilcasiis si loo dhowro maadooyinka barakaysan ee biyaha zamsamka ku jira. goobtaas ayaa laga qaybiyaa biyaha waxaana biyahan lagu qaybiyaa booyado loo nidaamiyey hab gaar ah oo loogu talagalay waxaana daboolka booyadahan lagu xiraa qufullo adag waxaana loo ogol yahay oo keliya inuu furo shaqaalaha masjidka ilaahay ee loo cayimay si looga ilaaliyo halis walba. waxaana sidaa caadiga ah uu 150 kul oo litir u keenaa maalin walba xilliga kulaylahaana 180 kun oo litir. howlaha soo saarista iyo la socodka qulqulka iyo qaybinta ayaa waxaa fuliya xargaha ilmaqabatayga ee fiber optiga oo lagu maamulo program casriya oo laga magac baxay SCADA. biyahan barakaysan ayaa lagu qaybiyaa labada masjid ee barakaysan
iyadoo loo adeegsanayo 40,000 oo haamood oo lagu nadiifiyey biyo kulul dabadeedna la qaboojiyey. waxaana qaybinta loo diyaariyey meel walba si xirfadaysan iyo luuq walba ama jiiro walba. waxaana haamahan lagu buuxiyaa meelo gaara, waxaana la dhigaa goobo loogu talagalay masjidka barakaysan. waxaana lagu kaxeeyaa baabuur yaryar oo korontada ku shaqaysa. waxaana la hubiyaa xitaa heerkulka biyaha zamzamka ee qofka loo shubayo. waxaana si roor laaligeliyo xujayda iyo martida. waxaa haamaha mar walba ag yaala caagag biyaha laga cabo oo isticmaal kadib la tuuro. waxaana la sheegay in maalin walba 2 milyan oo koobabka caagaga la isticmaalo si loo ilaaliyo caafimaadka martida Ilaahay. haamahan ayaa waxaa ku xiran dabool dheer oo ka ilaaliya haraadiga ilmaqabatayga iyo camuudda. waxaana loo dhaqaa haamahan si joogto ah meelo loo habeeyey oo bannaanka ku yaala. waxaana lagu xiraa tuubooyin biyaha laga cabo daraj walba iyo weliba goob walba ee labada masjid. waxaana xilliga kulaylaha lagu xiraa talaagado qaboojiya oo biyaha zamzamka laga cabo. xarunta biyaha zamzamka laga shubto ee ku taal geesta bare ayaa loogu talagalay in xujayda iyo martidu ay biyaha ka qaadan karaan hadday rabaan inay dibadda u qaataan ama ka shubtaan si loogu fudaydiyo hawshan. haamo dhabarka lagu wado ayaa loogu talagalay meelaha dadku ay ku xunsan yihiin oo dadka looga shushubo. xitaa caagag moorgaraysan oo zamzamka ayaa maamulku u qaybiyaan martida goob walba ay ku sugan yihiin. isticmaalka biyaha zamzamka ee maalin walba masjidka barakaysan dhexdiisa ayaa lagu qiyaasay 700,000 oo litir maalin walba xilliyada qaboobaha, kulaylahana 2 milyan oo litir. si loo ilaaliyo nadaafadda tuubooyinka biyaha zamzamka waxaa mar walba laga qaadaa tijaabooyin cilmiyeysan dhuumaha, haamaha, tuubooyinka lafahaantooda si loo sugo amniga iyo caafimaadka biyaha barakaysan iyo cidda cabaysa 24 saac. waxaana loo gudbiyaa shaybaar u gaara 100 jeer ugu yaraan maalintii. biyaha zamzamku waa hadiyad xagga samada ka timid, waxayna daawo ka yihiin hadba waxa uu qofka cabayay markaas uu cabayo u niyeysto. waana barako saameynteedu ku xiran tahay niyadda yaqiinta qofka cabaya. maadaama ay biyaha zamzamka ku jiraan maadooyin isku dhafan oo iyagu istaarma awoodda Ilaahay hadba xaajada uu qofku u niyeysto. waxaana fiican in qofka xaji ama qofka caadiga ee islaamkii uu isku dayo inuu mar walba helo biyaha zamzamka uu madaxa ku dhaqdo una cabo. waayo maadaama ay yihiin biyo barakaysan oo iyagu mayra cudurro aad u fara badan. like oo la wadaaga asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan fiidiyogan.